maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa go'aan ka soo saartay kiiska cabdirasaaq xuseen tahliil oo dhowr jeer oo hore la horgeeyey maxkamadda sare kadib rafaan uu ka soo qaatay maxkamadda ciidamada Puntland oo horey siyaabo kala duwan u xukuntay cabdirasaaq xuseen tahliil oo lala xiriirinayo falal al-shabaabnimo ayaa maxkamadda sare amartay in si degdeg ah looga daayo xabsiga haddii aysan jirin dembi kale waxaana sidoo kale amartay in uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho muddo 2 sano ah. Ugu dambeyntii maxkamadda ayaa ku amartay ciidamada amniga in ay si gaar ah ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa ku dhawaad 5 sano iyo in uu toddobaadkiiba mar iska diiwaangeliyo xarunta dambi baarista booliska ee CID sida uu u sheegay warbaahinta gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Generaal Imaan Cali Yarow. Kiiska cabdirasaaq xuseen tahliil ayaa soo jiitamaya tan iyo dabayaaqadii July 2017 waxaana lagu fursan waayay in dowladda dhexe loo soo gacangeliyo kiiskan oo culays gaar ah ku hayay degmada Gaalkacyo ee maamul ahaan ee kala qaybisa Puntland iyo Galmudug.